السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرابة aad baan idin salaamayaa asxaabtayda cusub ee channelka kusoo biirtay. waxaan idin leeyahay aad u soo dhawaada gacmo furan dhammaantiin. waxaan idin rajeynayaa inaa wada fiican tihiin asxaabtaydii hore iyo asxaabtayda cusubba. annaguna waa fiicanay alxamdulilah. maanta casharkaynu samayn doono waxbayaabahaaynu ka samayn doono inuu halkan ku haysanaa qaar ka mid ah. waxaa halkaa inoo yaala 2 koob oo daqiiqa, koob biyo ah, wax yar oo saliid saytuuna ama olive oil ah, khamiiriso iyo milix, wax yar oo sonkorana iyadana gadaal ayaynu kaga soo darsan doonaa insha Allah. hadda waxaynu ka bilaabaynaa khamiirisada. waa taqoyan ta qalalan haddaad haysato waxaad ku darsanaysaa 2 malgaacadood oo kuwa yar yara. hadda anigu intaan isticmaalayaa waxa weeye 25 gram. bogoska yar waxa ku jira xidhan 50 gram. marka waan kala qaybiyay, waa qayb ahaan biyo yar baynu ku qasaynaa. si fiican markaynu isugu qasnay waxaynu ku darnay saliid saytuuntii ama olive oil. milixdii ayaynu iyadana ku darnay oo wax yara waynu isku walaaqaynaa. si fiican baynu isu dhexgelinaynaa. si fiican baynu isugu walaaqnay. kadib waxaynu ku darnay koob daqiiqdii kamid ah, sababtoo 2 koob baynu isticmaalaynaa. marka mid ayaynu hadda biyihii yaraa ee inoo qasnay khamiirisada ahaa aynu kusii wadaynaa. haddana wax yar oo biyo baynu ku darsanay. koobkii kale daqiiqda ahaa baynu kusoo darnay. xoogaa waan sii dhexgelinaa. sonkortii aan idiin sheegayayna hadda wax yar oo sonkora baynu iyadana ku darnay. waxaynu sameynaynaa ceesh. marka insha Allah si fiican ila arka. hadda waxaynu sameynaynaa miiskaynu saaranaynaa. miiska waynu dhaqnay, waa nadiif, gacmuhu waa nadiif, meel kasta waa nadiif maasha Allah. dhag kadib daqiiqo yar baynu miiska ku daadinaynaa. waxaynu saarnay waa xashkii. si fiican baa la isu dhexgelinayaa. hadda waxoogaa baan xasheeyay dhowr daqiiqo. kadib waxaynu tijaabinaynaa inuu weli xash u sii baahan yahay in kale. hadda waxaan dareemaynaa inuu xash u baahan yahay weli, sababtoo ah siday daqiiqdu isuga soo ruqruqayso. marka waxaynu sameynaynaa waynu kusii kordhinaynaa xashka. makadan waxoogaa baan soo xashnay dhowr daqiiqo. idinmaan tusin markaan xasheeyay, laakiin haddaan idin tusayaa. sidaas qaabka waad u xashi kartaa. haddii kale waxaad u xashi kartaa labadaada gamcood intaad isugu geyso, markaas waliba kasii fiican ayaad xoog u xashaysaa. marka aad doonayso wax xash ka samaysan sida daqiiqdan oo kaleeto inaad sameysid, hadday tahay sabaayad, hadday tahay ceeshka hadda aynu rabno inaynu sameyno, hadday tahay roodhi, wax kasta waa in gacanta lagu daaliyo. haddaad mashiin haysatana kaba sii fiican. madiimada aynu saliid yar soo marinay ayaynu ku ridaynaa markaynu si fiican u xashinay. marka waxaynu sameynaynaa, waxaynu dhigaynaa meel intay faxayso. saacad meelahaasaan ka maqnaa, way soo faxday. intii ay leegayd iyo in kasii badanba way leegaatay maasha Allah. si fiican bay u khamiirtay yani. hadda sidan ayaynu ka dhignay. waxaynu rabnaa inaynu googoosano ama gobol yar ka dhigno. sidanan mindi ugu jarjaray 10 xabaan ka dhigay. markaad sidaa u dhuubto inaad jarjarto way kuu fududaanaysaa. gobolkii yar ayaynu ka dhignay baynu haddana la waxaynaa. markaynu la waxnay maasha Allah sidan ay noqotay. inta inay ka weynaato ma rabo. ceesh yar oo maasha Allah ayaan rabaa, mid aan xoog u balbalaadhnayn. hadda markaynu soo wada la waxnay 10kii xabo sidaas ayaynu u dhigaynaa meel intay ilaa 30 daqiiqo intay haddana faxayso. kadib waxaa isagana halkan inoogu diyaarsan ceeshka wixii lagu cuni lahaa caawa, oo ah sanuunad ama suugo marba saa u taqaano. hilib ari baynu ku sameynaynaa macalafihiisii wata oo googo'an. 4 xabo basal, 2 xabo yaanyo ah, xawaajiyadii, barbaroonigii iyo basbaas qajigii, sinjibiishii qoyanay, toontii, 4 xabo baradho ah, tamaandho shiishiid ama tamaandho qasaac iyo hilibkii ayaa halkan inoogu diyaarsan.
maasha allah qurux weeye markay sidaa khudradda iyo wax waliba kalara kala duwan ilaahay nimcooyinku ina siiyey maasha allah waa inagu xamdi noqo. hadda waxaynu saaranay maqligii oo inoo kululaaday kadibna waxaynu saarnay xabad ceeshkii ah markii ugu horreysay saarayay dabcan maan duubin laakiin hadda markaan dhinaca kale u rogay baan duubay. maasha allah qurux weeye wax saliid ah kuma dubayna haba yaraato sidaasaynu u rogrogaynaa ilaa inta ay ka bislaanayso waana dareemaysaa markay bislaatay maasha allah. hadda waxaan ku iri xabad kaleynu haddana saarnay qurux xaaladdu waxaan ku iri kaaliska arag wax waliba sidii loogu talagalay bay u socdaan. ceesh yaroo jilicsan oo macaan oo kaaliska arag maxaa ka fiican gurigaaga inaad ceesh kulul oo macaan gacantaadaad ku samaysatay ogtahay waxyaabihii aad ka samaysay inaad samaysato oo nadaafadii iyo wax walba adigu aad dhag wax ka fiican male intaad mid dariiqa yaaliyaala soo iibsan lahayd oo dabayshu ku dhacday. maasha allah maalintay kaa qabatay ceesh inaad cunto gurigaaga ku samayso. hadda digsigii baynu dabka saaranay aynu sanuunada ku samayn lahayn waxoogaa saliid saytuun aynu ku darnay laakiin saliidaad rabtaad isticmaali kartaa. anigu saliid saytuunkan iska jecelahay in dhawey taalaba laakiin adigu saliid alla saliidaad haysta haddaad rabto subag baad xitaa ku shiilan karta. afartii xabee basasha ahayd baan soo jarjaranay iyadii baynu ku darnay. basasha anigu markaan suugada samaynayo ama sanuunad waxaan jecelahay inay aada u badato laakiinse waa ikhtiyaari qofkii raba hal xabo ku darsanaya qofkii rabana 5 xabo ku darsanaya. tamaadkii baynu iyadana maxay ahayd tole soo dhilnay oo diirkii ka fiiqnay ama ka dhilnay. basashii baa inoo shiilmaysa basashu waa inay si fiican inoogu shiilanto haddii kaleeto hadhowto markii cuntadii bislaato way ka dhex muuqmuuqanaysaa. I hate waa necbahay inay basashu suugada ka dhex muuqmuuqato waa inay si fiican u shiilanto macaankeeduna markaas uu soo baxaya. hilibkii baa isagana halkan inoo go'an waslad yar yar aynu ka dhiganay. maasha allah waynu ku darsan doonaa markay si fiican inoogu shiilantay casaan markay yacni bilowdo inay bislaatay maxaan ku dhahdaa basasha casaan bay soo noqotaa hareeraha iyo ka casaataa markaas ayaa dareemaysa inay bislaatay. hadda waxaynu ku daraynaa sinjibiishi waa sinjibiishi qoyanayd laakiin xitaa taqalalan haddaad haysato waad ku darsan kartaa intaad tunto. tomaadkii iyadana aynu soo jarjarnay labadii xabee tomaadka ahayd tamaandhada ahayd waxaynu ku darnay iyagana xawaashiyadii oo ahaa khamuun coriander kari iyo maji. xawaash alla xawaashkaad haysato ayaad ku darsan kartaa adiga iyo dookhaaga weeye wixii aad rabto inaad ku udgoonaysato laakiin anigu hadda intanan haysta intanaan raba inaan ku udgoonay. toontii iyadana 4 xabad ahayd oo aynu soo tuujinay ama soo tumanay ayaynu iyadana ku darnay. maasha allah carafta iyo udgoonka saa uga soo kamkamaya. waxaa iyadana ku daraynaa tamaadkii shiidnaa waa tamaandho qasaacdii tamaandho shiishiidii oo aynu iyadana ku karinayna. baradhadii iyada waynu ugu dambaysiinaynaa gobol gobol waaweyn baynu ka dhignay xabad kasta 4 xabun baan ka dhigay ma raba inay iga burburto. haddaan mar hore ku shubi lahaa way suugadii oo aan bislaanbay intay bislaato kaa burburaysaa laakiin hadda suugadii markii sidii kale walaaqeedii iyo wixeedii dhammaysatay ee bislaatay ayaan ku daray baradhada koobiya ahaafkiina waan ku shubay daboolkiina u jiidina 30 daqiiqay sidaa u qaraysaa. hooyaday ilaahay dembigeeda ha dhaafo ayaa ay bartay suugadan qaabka loo sameeyo weligeed may ogolaan jirin in baradhadu ka burburto anigana waxay bartay inaanay iga burburin. maasha allah ka faa'iidayso waa suugo aad u macaan waxaan ku udgoon wax kastaad ku cuni kartid kaaliska arag weeye. maasha allah quruxdeeda waad aragtaan inay halkaa ka muuqdo maxaa la yidhi araggiisa ku deeqa oontiisuna ku deeqdaa. waxaa sidaa u quruxda badan leh waxaad dareemaysaa inay aada u macaantahay. baradhadii way bislaatay hadda saasaan magacadda ugu muday dhexda deedna 2 gobol bay kala noqotay.
aad ayay u qurux badan tahay. bisaylkeedu wuu dhammaystiran yahay, wax ka dhiman male. waa 30 daqiiqo kabacdi markii aan biyaha ku daray. dabkana xoog baan ugu gaabiyey. barbaroonigii aynu isagana jarnayna dusha ka saarnay. barbaroonigu marka ugu dambeysa in lagu rido ayaa fiican, sababtoo ah carafta iyo udgoonku markaas ayay suugada ku baxaysaa. hadda waa diyaar. ceeshkeennii markaynu soo dubanay sidan waxaan kuli inoogu diyaarsan yahay. wuu jilicsan yahay, kaala iska arag, maasha allah. saas daawo farta marka loogu jiro dhac. war waxaan ku iri cuntadan oo kale waxaan kuli waa isku soo haad. suugadiina waxaan kuli saasi diyaar inoogu tahay. sanuunadii maasha allah, udgoonka iyo macaanka. de waxaan idin idhi caawa casho reerka wax kale ha uga dhigin. afur baad ka dhigan kartaa, cashaad ka dhigan kartaa, wax allaale waxaad rabtid. kaala iska arag. ha ilaawin channelka inaad subscribe saarto. videogan haddaad ka heshay like ii saar. sii share garee walaalaha kale si ay uga faa'iidaystaan. aad ayaan idinka mahad celinayaa asxaabtayda ila joogta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.